Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan. Waxaanu halkii ka sii ambaqaadaynaa taariikhdii noo socotay ee dowladdii Mamaaligta. Haddaba geeridii Tuuraan Shaah waxay keentay aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fogfog. Masar kuma hadhin Ayuubi la wareega hoggaanka dowladda. Dhinaca kale Ayuubiyiinta Shaam weligoodba damac ayaa kaga jiray Masar. Waxay doonayeen inay qabsadaan oo isku daraan Masar iyo Shaam. Shakina kuma jiro in Ayuubiyiinta Shaam iyo Mamaaligta aanay nabadi dhex ool, sababtoo ah Mamaaligtu waxay dileen Tuuraan Shaah oo Ayuubi ah. Sidoo kale Mamaaligtu waxay fahamsanayeen in awoodda dhabta ah ee Masar aanay ahayn Ayuubiyiin iyo cid kale toona ee ay iyaga tahay, isla markaana la dulmiyey guulihii ay ka soo hooyeen goobihii dagaalka sida Mansuura iyo Fariskor, waayo iyaga iska lahaa guulahaas. Tabashooyinkaas iyo kuwo kale ayaa ka dhigay Mamaaligta Masar inay markii ugu horreysay taariikhda ku fekeraan inay iyaga laftoodu qabtaan hoggaanka dowladda Masar, maadaama ay ahaayeen awoodda Masar ee wakhtigaas. Sidoo kale ay ahaayeen ciidanka keliya ee la isku halleyn jiray. Laakiin ciidan ahaada mooyaane marna kuma fekerin xukun iyo hoggaan midna wakhtigan ka hor. Iminkase wareegtadu iyagay dul wareegaysaa. Boqorradii Ayuubiyiinta Shaam waa taag daran yihiin, awooddii oo dhanna gacantooda ayay ku jirtaa. Laakiin koritaanka kursiga Masar waxay dadka reer Masar ku noqonaysaa u qaadan waa, sababtoo ah dadkumay ilaabin inay Mamaaligtu aasaaskoodii ahaayeen addoomo la soo iibsan jiray, lana iibin jiray. Xataa haddii la xoreeyey, aqbalitaanka dadku u aqoonsadaan sidii madaxdii way adkaanaysaa. Markaa koritaanka kursiga xukunka waxaa ka horeeya in dadka la tuso xujo lagu qanciyo. Waxyaabahaas dhammaantood waxay keensadeen inay Mamaaligtu rajeeyaan fuulista kuraasta sarsare amaba qasriga madaxtooyada kadib dilkii Tuuraan Shaah. Sidaa daraaddeed waxay si wada jira u go'aansadeen inay Shajaratu Dur ugu dhawaaqaan madaxweynaha Masar si ku meel gaar ah bilowgii bishii Safar ee sanadkii 648 ee Hijriga, si ay gogol xaadh ugu sii noqoto Mamaaligta xooga badan. Haddaba Shajaratu Dur waa gabadh awood badan, geesiyad ah oo aad u caqli badan. Sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay maamulka iyo maaraynta. Taasina waa arrinta ku sababtay inay fuusho kursiga xukunka Masar. Haddaba arrintani waxay keensatay muran fara badan, waayo waa arrin ku cusub dhaqanka muslimiinta, isla markaana si weyn uga soo horjeeda. Adduunyadii ayaa kacday, waxaa ka qarxay meel walba kacdoono cadho ah. Guud ahaanna waxaa arrintaas laga diiday dacallada caalamka Islaamka. Haddaba waxay isku dayday Shajaratu Dur inay sawir qurux badan u yeesho inta ay kari karto. Markaas ayay ku abtirsatay ninkeedii shacabku aadka u jeclaayeen ee Maalik Saalix Najmudiin Ayuubi. Markaas ayay isku magacowday boqorada muslimiinta ee Saalixiya, iyadoo uga jeeda Saalixiya odageedii Maalik Saalix. Arrintaasi markay socon weydayna, haddana waxay istiri malaha intaasi kuma filna. Kolkaas ayay ku abtirsatay inankeedii yaraa ee Ina Saalix Ayuub, kaasoo la odhan jiray Khaliil. Markaas ayay isu bixisay boqorada muslimiinta Saalixiya, hooyada Suldaan Khaliil, amiirkii mu'miniinta. Midig bay ka saartay oo bidix bay ka saartay inay bulshadu caamo iyo culimo madaxtinimadeedaas aqbasho, oo way ka quusatay. Waxaaba cirka isku sii shareertay cadhadii. Haddaba wakhtigaa xaaladda ay Masar ku sugnayd ayaa ahayd mid aad u adag. Duulimaadkii kiristaanka ma joogsan. Imaaradihii kiristaanka Falastiin oo sii fidaya aadna ugu dhow Masar. Madaxdii Ayuubiyiinta Shaam oo damac ka hayo Masar. Sidoo kale Tataarkii oo iminka garaacaya albaabada Cabbaasiyiinta oo wadamo badan oo muslimiina soo jiiday. Haddaba waxaa bilaabmay mudaharaadyo xoogan oo shacabku ka bilaabeen magaalada Qaahira dacalladeeda oo dhan. Sidoo kalena waxaa ka kacay masaajidada culimadii oo ka fadwooday arrintan madaxtinimada Shajaratu Dur. Ragga culimada ugu cadhada badnaa waxaa ugu horreeyey
sheekhii weynaa ee ciise bin cabdisalaam oo wakhtiga ahaa hormoodkii culimmadii wakhtigaas. sidoo kale waxaa timi warqad uu soo diray khaliifkii muslimiinta ee muctasim billaah isagoo la hadlaya dhammaan shacabka reer Masar, sidoo kalena guubaabinaya. ayuu ku yidhi warqaddiisii, haddii ay raggii ka dhammaadeen xaggiina, ii soo sheega, aniga ayaa nin idiin soo dirayee. fariintaasi waxay u qoysgoysay shajaratu dur. wixii markaa ka dambeeyeyna boqoraddii shajaratu dur waxay go'aansatay inay ka tanaasusho xukunka. laakiin waxay isweydiisay, yaad uga tanaasushaa? waayo dhinacayay xukunka ka rabtaa. sidaa daraaddeed waxay go'aansatay boqoraddii Masar inay usha dabada qabsato. si ay arrintaasi u suurto gashana, waxay ku fikirtay inay ciyaarto siyaasad khatar ah oo inay guursato nin, kadibna ay xukunka uga tanaasusho si muuqaal ahaan uu ugu joogo, iyaduna ay daaha dabadiisa ka xukunto dalka. haddaba arrintaa markii ay falanqaysay, waxa u soo baxday qof awood badan oo reer Masar haddii aad guursato, isaga ayaa si buuxda talada gacantaada uga muroojinaya. aakhirkiina waxay isugu keentay inay guursato nin ka mida mamaaligta, sababtoo ah iyagu tol iyo qabiil iyo cudud toonna markaa kuma lahayn Masar. sidaas daraaddeed waxay dooratay nin mamaaligtii ka mid ah oo ku caana guulwadaynta, kana fogaada khilaafka iyo loolanka. shakhsi ahaanna ah nin deggan, kaas oo lagu magacaabi jiray ciisadiin aybak. wuxuu ka mid yahay mamaaligta albaxriya. kadib markii ay guursatay ciisadiin aybak, waxay uga tanaasushay xukunkii. arrintaasina waxay dhacday markay dalka xukumaysay 80 maalmood oo keliya, waxaana tanaasulkaasi dhammaystirmay aakhirkii Jamaadusaani ee sannadkaas laftarkiisa ee 648 ee hijriga. haddaba boqorkan cusub ee ciisadiin aybak wuxuu la baxay Maalik al-Mucis. heshiiskiina waxaa lagu qaaday Masar. shacabkii reer Masarna way soo dhoweeyeen isbeddelka cusub, mar haddii aanu joogin nin ka mid ah Ayyuubiyiinta oo beddelaa. Masar way iska ogolaatay hogaaminta ciisadiin aybak, wuxuuna sidaa ku noqday boqorkii ugu horeeyey ee mamaaligta Masar xukunka qabta. haddaba shajaratu dur waxay iyana isu diyaarisay inay dalka daaha dabadiisa ka maamuli doonto. laakiin waxaad moodaa in caqli badnaantii shajaratu dur ay ku guuldarraysatay doorashada ninkan. boqor Maalik al-Mucis uma ahayn daciif sida ay moodaysay shajaratu dur. markiiba boqorkan cusub waxa uu fahmay qorshihii koowaad ee ay dejisatay boqoradan uga tanaasushay xukunka. sidoo kale wuxuu gartay khatarta ay ku yihiin walaalihiisa mamaaligtu iyo awooddooda ay Masar ku leeyihiin. sidaas daraaddeed wuxuu bilaabay in uu si tartiiba awooddiisa u dhiso. boqorkan cusub ee ciisadiin markiiba iskuma soo jeedin shajaratu dur iyo madaxdii mamaaligta midna, wuxuuse bilaabay inuu awooddiisa dhiso una diyaargarow qunyar socod ah. qorshihiisa koowaadna wuxuu bilaabay inuu soo iibsado mamaalig u khaas ah isaga. wuxuu diyaarsaday awood boqor oo ciidamaysan, kuna xejin karta kursiga. sidoo kalena mamaaligtii albaxriya wuxuu kala baxay ciddii wax kala qaban karta hamigiisan. wuxuu dhisay markaa al-mamaaliku al-mucisiya, wuxuuna madax uga dhigay kooxdan halyeygii taariikhdu xustay ee sayfudiin qudus. isna taariikhdiisa xagga dambe aynu ku arki doonaaye. haddaba boqorkan cusubi isaga lafahaantiisu wuxuu ka mid yahay al-mamaaliku al-baxriya. haddana waxaa isaga iyo iyagii ku kala dhacday kala fogaansho, waana ka warqabaa awooddooda. iyaguna waxaan shaki ku jirin inay waxyaabo kala duwani ay ka karayaan qalbigooda oo ku wajahan xasad. haddaba dadka Masar waxay ugu yeedhayaan boqor, iyaguse waa mamaaligtii waxay ugu yeedhayaan addoon. sidaas daraaddeed uquuriwaagaas wuxuu sababay kala fogaansho dhexdooda ah. laakiin boqorkan caqliga badani gelin horeba ma qaylin. si degan ayuu isaga watay arrimihiisa.
arrimahaas oo uu ku badsanayo tirada mamaaligta iyo ciidankiisana uu ku xoojinayo. dhinaca kale waxaa dhacday inay is urursadaan madaxdii ayuubiyiinta Shaam oo ay ku soo duulaan Masar, sababtoo ah waxay rabeen inay soo ceshadaan Masar oo ay ayuubiyiintu xukumi jireen. haddaba ciidankii Cisudiin Aybak iyo ciidankii Shaam waxay isku haleeleen goobta la yiraahdo Al-Cabaasiyah markii ay taariikhdu ahayd 10kii Dilqacda ee sanadkii 648 ee Hijriga. waqtigaana 4 bilood oo keliya ayuu xukunka hayaa. haddaba dagaalka uu ka soo guulaystay ayuubiyiintii soo duushay. guushaasina waxay kor u qaaday magaciisa, sidoo kalena shacabka reer Masar maqaamkii uu ka joogay aad ayuu u sare maray. haddaba markii la gaadhay sanadkii 651 ee Hijriga, 3 sano kadib xukunka Aybak, waxaa dhacday inay khilaafadii Cabbaasiyiinta ee uu madaxda ka ahaa Al-Muctasim Billaah ay aqoonsi iyo ictiraaf buuxa siisay boqornimada Cisudiin Aybak ee Masar. arrimahaas oo dhammina waxay jirridaha u aaseen xukunkii Al-Mucizz inuu si fiican majaraha ugu hayo xukunka Masar. kadib waxaa sii batay nacaybkii mamaaligtii waaweyneyd, gaar ahaan Farisudiin Aqdaay, kaasoo kula kici jiray afxumo aanu kaba qarsanaynin. si toos ah ayuu u caayaa, sida uu ku sheegay Maqriis buuggiisa anshaxa lagu barto dowladihii boqortooyooyinka ahaa. wuxuu yidhi Farisudiin wuxuu gaadhay heer uu xaqiraad darteed uu xaqirayo Aybak, uuna bahdilayo uu ugu yeedhi jiray magaciisa oo keliya. taasina waxay caddaynaysaa in Farisudiin leeyahay boqorkani maahee waa sawir oo aanu u quudhayn boqornimada. haddaba arrintaasi waxay keentay in boqorkii uu si xeel dheer uga fikiro, kadibna waxa u soo baxday inuu ka takhalluso Farisudiin Aqdaay si uu ammaan ugu helo naftiisa una haysto awooddiisa si buuxda. haddaba maanta halkaas ayaynu ku joojin doonaa. waxaynu halkaa ka sii ambaqaadi doonaa tallaabada uu ka qaadi doono iyo waxa uu ku fulin doono. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.